naftaydi qalbiga waa ku dheelyahay sidii ubad anan dhalay oo kalaan gabu jelaystaan darwaqada dahtaal iyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واني سلامي الكستو دونك جوتين سولو هذا عيد وناكسن كل عام وانتم بخير. رجال لازم يدينوا كسولو هذا عيدي وعبادي سنيني رمضانكي حوليني برنامج بان عادي وضعنا هكالي دونا سوماليا هكالي دونا إثيوبيا هكذا عي جيبوتي سكالي توانكي أرحمة عبادة هكالي دونا قلبت كول كسيتي هكالي دونا حالتها عادي دولكينا election في سوماليا يالكي تلدو مرايسو ورمركا يلا حريرة كسر قبل كسلو هي election كسومالي لان يبشر عيسى يعني حوجا كالي دونا سولد ولا وياي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج كنا قلنا وياي وأنا قبل بيا سوماليا الرماء سوماليا وكيم كبريم مينستر كهوش لو رجع مال في عنا مريسا شركي والقبتي وحشيس بهير لوجرا لكن واحد جرا أغل كسرة قدوميا أغل كسرة عبد حاشن ومثليا أنا قلنا خصيص هذا ناي باش عيسى أما ليسو وقويجا سومالي لان حلوان ذاك صباحيا أيام ليسكو هيا بل واحد وربعين تان كهيو أيام ير نقدر جيسين صوبتوا arrimo حساسي وياه guddiga maamulaya kuraasta gobolada waqooyi ayaa kamid ah caqabadaha ugu waaweyn ee hareynaya doorashada Soomaaliya. xubnaha guddigan ayaa kala hore la sheegay inay qorata fil Soomaaliya iyadoo la mariyay ra'iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Qadar Guuleed. waxaa la sheegay in guddigan lagu soo xulay hab ah inay soo saaraan dhammaan xubnaha la hubo inay cod ka siin doonaan madaxweynaha muddadu ka dhamaatay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waxa uu guddigan la kulmay buuq iyo diidmo xoog leh oo ka timid guddoonka aqalka sare xubnaha labada aqal ee gobolada waqooyi qaarkood mucaaradka iyo maamul goboleedyada qaar. شركرية قارسية برنامج حلل دوي dadka gaarsiiya inuu xoog badan galiyay inuu guddigan sidiisa ku maro. gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi waa ninka ugu xilka sareeya xubnaha reer waqooyiga ah ee xilka ka haya dawladda federaalka sida waafaqsan dastuurka ku meel gaarka ah ee Soomaaliya. hadda waxaa dib u bilaabanaya wada hadallada doorashooyinka Soomaaliya. Roble iyo kooxdiisu waxay qabaan in banaanka lagu soo dhameeyo qodobada muhiimka ah ee la isku hayo.
guddiga reer waqooyigu waa mid ka mid a qodobada ugu adag. Chum 104.5 is giving away a condo at Friday Harbor Resort. Time to focus on you forever Fridays. You can have it all, no. labada dhinac ee hadda isku haysata arrinta guddigan ayaa kala taagan in guddiga sidiisii hore loo dhaafo oo dhowr xubnood laga siiya Cabdi Xaashi sida uu xeerinayo isfahamkii Baydhabo ee 16 Febraayo. Okay, ayar baan ku oranay guddigan arrintani waxa la doonayaa in iyadoo shuruuc imika xildhibaanada jooga duuduub lagu sameeyo. anagu haddaan nahay madaxweyne Farmaajo iyo maamulka Cabdi Xaashi iyo dhamaan waxaan doonaynaa 9 xildhibaan ee beesha Ciise ku metela inaad tiratan la geliyo dad u qalma oo wax qabad leh oo waxtar leh ay soo saartaan dhalinyarada Ciise ee ku nool Muqdisho way ka dayriyeen 9 xildhibaan wax qabadkii way ka waayeen shaqooyin gelintii way ka waayeen ambaasadarada kootadii agaasimayaashii agaasimo waxaadkii waxyaabo badan oo kooto ku lahayn oo beesha Ciise la siin lahaa raggii iyo gabdhihii halkaa noo joogay waa laga dayrinayaa marka waxaan u baahanahay in arrinka la soo bandhigo oo challenge loo furo oo tani lacagta lagu iibsanayo ee corruption kana lanaga joojo taagan yihiin oo ah in dhammaan guddiga lagu soo wareejiyo iyaga oo laga dhaafo faragelinta kadibna iyagu ay ka heshiiyaan qaybinta haddii ay yihiin reer waqooyi. Roble waxa uu rabaa in degdeg xal looga gaaro arrintan. dhammaan xubnihii xildhibaanada rabay ee taageersanaa madaxweyne Farmaajo waxay hadda hoosta uga jiraan ra'iisul wasaare Roble oo awood ahaan iyo shacab ahaanba hadda kor u soo kacay waxayna taasi fududayn kartaa xalka muranka ka taagan guddigan. hogaamiyaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor iyo kooxdiisa waaya arag ayaa la sheegay inay nabadoonnimo siyaasadeed ka dhex bilaabeen xubnaha reer waqooyiga si loo xalliyo muranka guddiga. waxay Qorqor iyo kooxdiisu saaka arkeen gudoomiye Cabdi Xaashi halka maanta doorkiina uu Qorqor gurigiisa ku qaabilay ra'iisul wasaare waaya Cabdi Xaashi waxaan leenahay u ogolow dadka Somaliland inay taratan xalaal galaan dawladda ay baarlamaanka ragga 20 sano artay laamika ragga halka joogi iyo gabdhaha halka joogi waa dad fiican ma waa la diiday dadka Somaliland waa inay helaan iyaga xuquuqdooda waaya waxa kale oo ka jira magaalada Xariirad degmada Xariirad waa kii kabkii kubadda cagta la qabtay waa kii lagu ciyaaray batax caruurtu 12 team oo culus oo aad dhalinyaro firfircoon oo degmada Xariirad degan oo qabiil kasta la dadka halkaa degan oo Soomaali kolka waa kii laga dhidiyay la yidhi aan Tiraan dhisno Tiraankii oo la dhagax dhigay dadaalo badan baa socday qurbo joog gudo joog dadaaladii muraa ka yimiday Tiraankii waa la dhagax dhigay waa kana dhageysta. bismillaahi raxmaani raxiim halkan aan joogay waxa weeyaan waa stadium Xukiye oo dhismuhu ka socdo wadarkiisa ustaadintii ay gacanta ku hayaan waa qaybta telefoonka ee dadku waa fariisanayay. Okay, kan waa dhagax waa la wadaa dhagax dhigii baan helayaa. gudoomiyaha degmada Xariirad iyo xogayaha fulinta dawladda hoose degmadaasi ayaa dhagax dhigay garoon ciyaareed oo casri ah isla markaana loogu magac daray Xukiye Stadium. garoonkani oo maalgelinayo ganacsadaha weyn ee reer Xariirad mudane Carab Cabdi Xukiye ayaa waxa ka hadlay dhagax dhigiisa xildhibaan Aadan Cabdillaahi Boorle Waran iyo sidoo kale gudoomiyaha maxkamadda degmadaasi Xariirad Sheekh Xuseen Aadan Barkhalle waxaana hadaladoodii kamid ahaa oo ku dhiiraday in uu maanta ummadda u horseedo waxyaalaha lagaga maarmo mukhadaraadka sida jaadka oo kale sida tahriibka oo kale xataa dadka yagan waaweyn baa ku nasanaya meesha oo maaragtaan wax ku soo bixinay ninka ku dhiiraday in Ilaahay u baarigaan horta ugu ducaynayna waa wax wanaagsan waa wax adduunka ka socda waa horumar qaaliya waxaan ku garab galaynaa wax alla wixii uu nooga baahdana waa ku garab galaynaa insha Allah taala iyaga oo ninka dhalinyarada ah oo isxil qaaday oo ka xanuunsaday magaalada siday u taaliya dhalinyarada dacaska haysta ka xanuunsaday aan ku kulanno oo ku wada joogno waa mahad Ilaahay sharaf bayna oo tahay sharaf bay isagan oo tahay waxaan leenahay haddii Ilaahay ku rooyahay wax naga maqnaa man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru amsalha qofka khayr jideeya ee laga daydo inta kaga dayatay
intay camal ay leedahay isaga in leeg baa lagu daraya loo dhisayo garoon kubadeed oo xariirada waxa weeyaan degmooyinka ugu dambeeya garoonka iyay ka mid noqotay inay iyaguna isku bartaan kuna ciyaar badan aad iyo aad bay u mahadsan yihiin inanka waayahay ganacsadaha hawsha qabtay waan hambalyaynaynaa ganacsadaha ay waa ka biyaha xariirada waa ninka gacanta ku haya meelo caanaha laga maalo oo magaalada xariirada caana keenta ayuu dhaqay talabaad waa nin gaaska iyo shidaalka ayuu keeni jiray marka waa ganacsado markii maaragtay xariirka ay rabshadu ka taagnaayeen 2013 12kii ayaan wada hadli jirnay waa ganacsado dhalinyaro oo madax furan oo aad iyo aad baan ugu hambaleynaynaa hambali baan leenahay dhalinyartii halkaa teeraanka loo dhisayena insha allah ha noqdaan kuwa ka fogaada waxyaabaha diraaga jaadka mukhaadaraadka isboortiguna wuxuu dhisaa maskaxda iyo jirhka tacliintuna waxay dhistaa aqliga iyay korisaa marka intiiba maanta xariirad waa isla heshay hambale baan leeyahay reer xariiradna waxaan ku dhiirigelinayaa inay isku duubnaadaan aad iyo aadna ay isku duubnaadaan isjacayl iyo walaalnimo muujaan waxa kaloona dhagaala news ay ka hadashay oo aan ku dhiirigeliyey electionka soo socda wiigka dambe 31 electionka dhacaya electionka inay soo saartaan dad taya leh dadka wax u qabanaya dhalinyaro ay u arkaan inay mustaqbalka ay wax u tari doonaan iminka sida iminka maayarkii hore magaalada xariirad Faysal Atore waa 40 waa dhalinyarta maanta ayshkoog buuxo waa raggii dagaaladii ku soo dhex koray maantana dhowr iyo 40 jira raggaayoo kale Yaasiin Axmed Yaasiin iyo raggaasi waa ragga maanta mustaqbalka xadkii waqtiga ugu fiicnaa odayada 60 iyo ka weyn waqtigooga iyaguna waa inay dhalinyarada soo kacaysa ee siyaasadda soo galaysa inay u baneeyaan hargaal newsna maxay tiri bal waa kana dhageysta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waa hargaal news media network fariin u gudbinaysa dadka dooranaya shacabka wax dooranaya iyo dadka la dooranayo fariintan waxaa ku socotaa gobolka Salal iyo Awdal waxa weeyaan ragga la dooranayo dadku waa isku muuqa waa isku mid aqliga isku mid maaha muuqa waa isku mid maskaxda isku mid maaha muuqa waa isku mid waxqabadka isku mid maaha muuqa waa isku mid ragaynimada isku mid maaha waxaan farayaa reer Salal sida xariirada Sayla iyo nawaaxiga gobolka Salal u dooro kolkaa dooranayso shakhsiga karti iyo ragaynimo iyo waxqabad ha ku dooran qabiilnimo ama reernimo ka wax kuu qabanay ha noqdo ku karti leh oo ragaynimo leh inuuna noqonin kuwaad qabiil ku doorato oo raracuna aan horeyna u soo aragnay qabiil faa'iido ma leh laakiin waxaad ku doorateen ragaynimo iyo karti iyo waxqabad hawlkarnimo inuu shaqo geeyo dhalinyarta inuu dhaqtarada wax ka qabto inuu tacliinta wax ka qabto gobolka Salal halkaas waxaa ka soo arkaysiin kelmadaha oo aan u diray electionka xildhibaanada tartanka ku jira waxa ugu badanna waxa weeyaan waa ugaadh iyo cabdiraxmaan ceeleye ayaa ugu badan deegaan ahaan iyagana waxaan leeyahay inigoo is ogol inigoo isku faraxsan inigoo qofka aad rabtaan oo kalsooni isku buuxa ku doorta qofkaan ha noqdo qof wax nii qabanaya ku maaragtay Hargeysa iska fadhiista ama Sayla iska fadhiista oo sidii jiirkiin wax raamsada inuu noqon sidaan uga baranay siyaasiyiinta Ciisa meel kastay joogaan idnilaal kariim ragga la dooran doonana waxaan leenahay taariikhdan eegi election damba inta gudaha qabataan hadii la doorto kolka la doorto from sanadkan iyo electionka damba ninkii nool qofkii wax qabadkiisa la miisaami kolka kii wax dadka u taray hal qofna ha noqoto iskuul ma u dirtay hal qof shaqo ma qortay iskuul meel abaabul ma ka samayso ma dhistay dhakhtar meel dawo iyo wax muga soo qaban qaabisa dhulka Djibouti iyo Hargeysa waa ka dawooyinkoona Djibouti la qaaday la geeyay ma ka soo qaadeen inigu qaybtiini ma ka soo qabsatay wixiini Hargeysa ma ka soo qaadeen hay'ad ma keentay gobolkaagi wax qabad baa la niga rabaa taasaana la niga sugayaa waayahay Soomaaliya iyo Somaliland
halkaa baan kaga baxayaa maxaa jabuuti ka dhacay halkay taladii jabuuti maraysaa madaxweyne ismaaciil cumar geelle weli dowladdii ma sameeyey weli waa la sugayaa wax socda iyo wax kale waa socda hurdadii buu iskaga noqday 10 saacadood buu hurdaa 2 saacadood buu soo jeedaa 2 saacadood jaab buu cunaayo iska birqaansan yahay madaxweyne ismaaciil cumar geelle da'baa haysa dhalinyarad ka yar oo mustaqbalka waddanka firfircoon inuu u dhiibano weli waa kari laaya kolka inta meesha ku xeersana waa in iyagu saa isku wada jeeda bisha 19-keegii masta kursan adoo hoostaa gashan ayaa la yimi beesha canfareed caddayti candhufa u dirayso hubka ay lacagta ururinayso halwadii mas baa u galay maalintii khamiistii weygii hore 19-kii may xaafadda arxima amxaaradii la gelaysay ayaa ka bilowday midiyaa la isgelgeliyey weerar amxaar iyo canfar buu noqday 6 baa dhimatay dabeecadaha jabuuti lagama sheegin meela laguma soo qorin dowladda jabuuti waa dowlad wax uun qaraysa oo dabeecadda amxaarka leedahay ko ismaaciil cumar geelle amxaara maogta oo wilkaan isku hayo wixii dhaca dad idiloo dhintay dhul gubtay madaxdu way soo baxaano waan ka xunnahay dhibaatadaa bay yidhahdeen weligii ma yidhaha isagu maalintuu faanayo oo loo daadaansiyo muu soo baxaa 5 saacadood baa waddadii carximo hormaraysay la xidhay dagaal midiyo iyo dhagax iyo budad laysla dhacay booliiska jardaarama meeshii tegey waa la kala qabtay waxaa dhimatay 6 qof 20 qofna dhaawac bay noqotay oromo iyo amxaare iyo canfar baana isdilaysa waa kuwa noogu heshiiya caddayti candhufe ciisaa ku leynay reer jabuutina ilaahay unbay baryeenoo waa dadee inta soomaalidu aan balance ahayn oo iska aamusan laakiin canfartu waxaa la yidhaha qotigu iligku kuu qoslayo kuu qaniinaa canfartii oo amxaarkii oromadu waa iskooda mid waxay u heshiiyeen ciisaa u heshiiyeen markii hore laakiin maanta xaqii baa dilaacay ilaahay iyagu isku furay marka waxa weeyaan sheekadii foolxumay ku dhammaatay iminka waxaa la sheegayaa inaan shalay toole xitaa hub la qabtay arximo hub baa ka buuxa booliiska jabuuti cabdilaahi cabdi iyo jardaaranka iyo militariga waxaan u sheegaynaa inaa xaafaddaa la baadho hubka caddayti candhuufa la geynayo ee dabadaha laga soo dhoofina habeenkii doonidaha kalluunka lagaga soo qaaday dhulka yaman ayaa arximo ka buuxa kalluunkaa lasoo dhexgeliyaa marka waa inaa la baadho arximo waa inaa wax laga qabto oromadan iyo xamashidanna waa inay meesha ka baxdo arrinkaasaa jira arrinkaas waa inaa wax laga qabtaa leena madaxdii jabuuti waa inay dowladda ay dhisayaan oo la sugayaa madaxweyne ismaaciil cumar geelle election baan helayo 95% ayaan ku badiyo bilo iska seexdayba yaa meesha ka shaqaynaya marka dowladdii yaa maamulaya dee waxaa maamulaya dadaan la garanaynba kuwii lacagta uun meesha u joogay xoolahan guranay ee reegacalkii ahaa kuwii reeabtigii ahaye iyaguna habtida unaynaye meelaha wax ka daba dhuuqay mijaaxa xaabayaysaaq intiibaa meeshiibaa ku durduriyeysa raggii cabdiraxmaan eleeye galoomada uu ku taxayna sidaa unbay islaantii u eegayaan war maxay leedahay war meeshii naga tuuri dee yaa 2 dibi baa isiryanaya waxaa mamaabaa jirta 3 dibi baa saaxiib ahaa libaaxii iyo dawacadii waa heshiiyoo yidhi war dibigan cad habeenkii baan ka naxaayaan qallo haye kolkaabuu war gebigi waa yidhahdeen naga qala dibigii caddaabaa la qalay haddana dhowr toddobaad markii la joogaa la yidhi war dibigan madow waxaan ka sasaayo u dhibaye aan qallo wuxuu yidhi maalintii dibigii caddaa la qalay yaan xasuustay inaan dee anigaba lagu soo socdo qab baa laga siiyey kii casaabaa hadhay kii casaana habeenunbaa cunaa la qabtay maxaan uga socdaa markii jabuuti buldhuqa la leynayay markii fuwaad la xidhayay way iswada daawanayeen reer jabuuti fuwaad xoolama xadin wuxuu war waxa naga daaya buldhuqa maxaa lagu laayay maxay dadkaa geysteen
ورنا قرر يقول بانو ماشي ما راح كل جنا نداية مي أنيقا هني تليه هني ما تيجي دانسا ورما سيارة ندقنا ناي ندا مايا يعني قبل ما أقول لك أنت وين ندلي حب باتني مركوا حويان وسود الداونين رجبوتنا يلا دلي هبل بال دلي هبل بالكلام دلي ما أنت من سجى بس أنت سيدا وهايين أيود إسماعيل عمر قالنا وبس وقعت بقرتويو بس ده ما دي بقوله بقر قلما بقريو جيست لنا يو جيست الدور ما سمع وطري سيلا اللغاية جاج كدليسا حرات بكدلي على أي شيء نلا صاحبه إنه دولة دوش غيره وموصل ولني أباي حرات بكريات كدلي جي وما سرع قال أنتوا ودلي أنتوا حرات دلي واسكمت حدو ديق ليه يا محمد جامعيو سكرييو وهيبيو أو عايسيو waxaan galoomaa lagu tacay wada baqtiga ceelal bay luka ugu qodi laayeen adliist haraadka ka reebi laayeen dadku waa sadaqa jaariya lacagta ay wax maal yaani ku sameynayaan ay jaad iyo tumasho kula jiraan ay dhulka ku tagayaan qurbaha ceelka maxaa qoday $5,000 baa qoday $6,000 $10,000 baa qoday ceel biyo u qodi kari waayeen dadkooda oo haraad baa dilaba kow تميرنا ملك ضدنا ملك هويان ريرك عبد الرحمن علينا كذا شان الشيكتا مجا عبد الرحمن عليه شقدم كو قبتين إيه سنمينا كوي مادين مجا عيسينا كو جوجا عيسي بون صورنا أبو عبد الرحمن علينا خاص كودا داعي واحتركوا جيبان هيجيا أنا قبل يالدي جماعة لكن واحتركا قفكا وحلقوا ميزاما رجعني ماذا تدكم ميزام ويل ريركو كذا شالقوا ميزاما وحموت تري reerku ka dhashay hoos u sii dhaadhac ciisanimada ka tag cabdiraxmaan celiye jabuuti nin cabdiraxmaan celiye oo ganacsado oo dhergayo weyn oo ganacsi import iyo outport lama aragteen maxay qabtaan dowladda un bay nuugaan kontraad yar baa la siin 10 milyan baa la siin wixii inta 10 milyan lagu dhisay xataa ma dhisaan ranji ma marmariyaan lacagta un baa la kala qaybsadaa sidii baa lagu cunay waa xaraan يوم القيامة ولا سويدين والظلم تدكي حق أولها إخوترات كايلي إخوتربزية قالها قبل لما لو قديد ما أنتنا يجي باي سريان يدي قدر حيديالي قدر حيديالي عبد الرحمن يعرون لا بدش أضيب النوكين عبد الرحمن إليا إما كان يساقي يوم ما سكي باي سريان يبغى لي أروح أنا قولون كيف الشد إساقن هذا ركع الله هذا العكس السيور قيس الله تجا هذا كم مزولة ما أدري إن إساق العكس ولوك كردسو أو أقل كردسو إن شاء الله مو هذا كلام دس مو إشعاع دس مدير بدس دول عيسو دس لكن كان كلا رالي بكيا اسمه المركيل رالي بكيا إنه هرجيس كردس العكس رالي بكيا إنه العكس حدو هرجيس الله تجا كإنسان الله ما قال وحسوا دلوني ما وادلوني ماذا كتاجر عديتي عنوفا قربايس حد لي ما حد لي يا دلي محمد حربي محو كل انت إله نحرست 1965 كي مركا حاسم قولي يوبا أي تالانج إسلا قالين اللو فريستي وضيض عيسى أي كجاي أحدين أي لا نكنا إلى يهودا كرسيga xumaantii halkay kala qaadeen ilaa la dilay ayuu ku dhintay ilaahay u naxariisto ilaa maanta sidii kaga maadhine xumaan un bay wadaan heesta cabdiraxmaan fadma axmed allah u naxariisto maxamed xarbi baa heesta loo qaaday markuu dhintay allah la dhigay
uga socdaa tallayday haysatiyo cimlada aan taagane toddobiyo lixdankii dagaaladii ka dhacayay Jabuuti Fadma Axmed waxay ahayd halgamayaashiyada nimca jaamac gabdhihii fanaaniintii ee xagga heesaha halganka ku galabay ilaahay u naxariisto iyaduna maanta way naga hooseysaa ilaahay dambigeega ha dhaafo jannada Allah geliyo آخرنا كواركي إلهي ونحرس محمود حربي يا أنتي لا شقينا يسيبها حريصة جنو هذا الله عليه من بعدهم قبضيو جيدي إسماعيل جيدي وضياشي وويناي صور شقيني إلهي waxa weeyaan rag badan oo Ismaaciil ka yar yar ayaa halka jiray waxa lagu xantaa loro dawladda Xasan Guleed Ali Ciidan waa la kulmay Ismaaciil ka yara rag badan oo maanta iska noolaan lahaa ala rag ay qadam bay meel xaflad Ismaaciil joogan baa la geeyay oo soo noqdaan wadnaha isu dhataay fiishi ala sunka dadka la siiyo sunka akhiritaanka isaga baa la siin Ismaaciil baa la siin يا سينا ولي بستانتي يا سين إمك أقل كابل اسكت حاجتا نجيب بابلا بستانتي هذا قوان تلي هذا نيجو رجيم ويان هاي هو كلام سابه وياك هوست كجري وانسوجي نادي كجدي فرس كواتني نيكي فرس كريدان سوينا شركرية برنامج بحلت بليه شركرية عديتي عنو بانقلي دونا أرمي إيجي لا نحرس فاطمة أحمد تفاحيان ترسدي هل كنت جوادوكتي مرة ما يصوت تستان تفاحي على كوها تفاحي وحوها الله نحرستي مرحومته بدري يوسف سيقبح ماشي أنا له حاجة صوتهم كذا هذا اللي وعن كذا اللي هذا اللي كاين استقبح ماشي هذا قال نوز بالله أنا إسكله بدري أنا على جيبوتي أنا على السيتي أنا على السلال أنا عيسى أنا دول عيسى ويان هذا أياته حتى هذا شغالة هيجاته حارك هيجات كرتا مسؤولة هيجات شقي كده فكر مسؤولة هيجات كشقي سا أفر ياتاي عيسى تات هين واحد تاي أردن أوراد حمشي عيسى هذا بورسي قبل ماشي أوصل شقتك دول كان أنا إسكالي سوادو هتانا دو حبك كرني إسكاسو بدري يوسف شغالة هيك تاي إسكاسو أي جاكي وضعتنا وقاركيا
qofaad waxba ka qaadayna lama xagxagto isagoo dowlad calan laana city iyo salal iyo jabuuti anaa iskale maxaad qaadide taageerya maxaad ku samayn kartaa aniga ku soo dhaweyno oo dadkaa dhignay oo ku soo dhawaysan markaa waad afcunoo taqa shekeynaysa عرفوان اسقعاوني قيدقينا كويها قربان سينتي galbeedka gobolka city dagaaladani ma dhammaanayaan dagaaladana waxaa hurinaya dowladda Itoobiya iyo dowlado kale waxaa laga qabtay wiigagan ciidamadii dagaalamayay Eritrean bay ahaayeen Djibouti bay ahaayeen Oromo bay ahaayeen Afar bay ahaayeen Gabuud bay ahaayeen Itoobiya oo dhan baa ku jirta marka waxa weeyaan waan ognahay dowladda Itoobiya ayaan la hadlaynaa Prime Minister Itoobiya aan leenahay arrinta waa in wax laga qabto in laba dal ku soo sugo meesha waa dhulka Itoobiya adeegta anuga garbaxaysana waxa degan dad Soomaaliya waa inay nabad ku helaan waa inay tacliin helaan waa inay caafimaad helaan waa inay cadaalad helaan dowladda Itoobiya ayna dadka maamulka kililka Soomaalida waa inay xuquuqda dadkeega ay soo sugaan ay ka daayaan caqabada iyo dulnimada adeegta anuga geesiyaal baa jooga geesiyaashana way guuleysanayaan gabayga wuxuu iga soo diray adeegta dagaalka ka dhacaya isagoo dhex jooga ayuu soo diray gurmada deediga beegmay kuliyow gaar ficilku waagay uu daaray furuurka laciimiday waanakay ka fadhiyaysan weyne furaaluusha ku seexinayni qalaal wiil tagayhayga sugay qabradeed lagu aasmaayey mise dhimoodhay kaaga daadi mise dhammaan qalalugu waayahay ويا رجال مدير نور والسلام يا برنامجنا نساس هنقول دونا سيد عدد النيبان مركز كالي دونا سومالي وحلنا هاي وهنا هيلكش كالبو يشيو بدل دونا لقبتو الدوانا السجال كبيش عيسى وهنا ترتك لنا وقالوا إن هو جوجا أما الصبحان أما قوة الله سيو وإلكش كوسو بحال سيدا وملاك كلبا إلكش كوسو بحيان وحالنا مدحوين فرماجو وقوليستي نبضي مقدسو واتستي إلكشن نبضيسن ودعيا سومالان إلكشن كالسعودة كبدايدا إلكشن one man one vote يا سومالان كدعيا وحي اللي يرحل حديقة خفيفة اللي يرحله لكن قول بالك كتاب مركا أدباني سلام يا قولي يشرف عزي بان ملاه جزاك الله خيرك يا رسول الله لقيت الشضر waxaa kaloo lena iloobayn jarnaal ama korneel ama lubnaan fuad yuusuf inaan faraha laga qaado xaaskiisii way aamusay walaalihii waa la wada aamusay ma garanaynaa inaa hoosta loo maraan u malaynaynaa reerkii maaragtay holle oo jilib ku ahaa weliba bakar dad baa darajada ku raadinaya ninkaa miskiinka ee wadaninimada u taagan waxaan leenahay madaxweyne ismaaciil margelo adduunyada waa laga tegi kursigaaga waad haysataa fuaad dowlad maaha kugu soo duule waa shaksi wuxuuna yidhi xaqdarradaad wadda jooji inaa intaa ku xidhnaada intaa sanad u dhaafo enough is enough kifaaya caleeha so let him go iska sii daa faraha ka qaad quwadkiisa xaaskiisa u yimaado faraha ka qaad dulun intaa leeg waa samaysay maalinteeda qiyaamaha aakhiro waa lina weydiinaya fuaad faraha ka qaada
cadaaladiisa ha loo sii daayo inankaayo xuquuqdiisa ha loo sii daayo waxaa kale suuqa soo marmarinayaan maxamed jaamac baa yaa jaranaar laga dhigay kolonel canfaraa jaranaarka sakariya lagu bedelayaa sakariya ma dhaadhacayo ismaaciil unbuu ma raacaya markuu ismaaciil socdo mu socon ama moolkulmeed baa qaadi ay sakariya ma ka tagaya meesha sababto waa meel uu nuugado waa meel uu jaqo uu dhiigga ka jaqo wasiirka difaacu tamar male baajadkana maayo sakariya iska haysta wasiirka arrimaha dibadda idris cumar geelle inankiisa baajadka le gacanta isaga haysta oo sekreteer jaranaara meeshani waa meel reer uun iska wada nuugay iminkana ubadkiisiaba gaala noo keenayoo tomi oo shalay baararka faransiiska gaardiyaanka ahanay iyaa lagu leeyahay afrikada ninka u tijaarsan weeyaan alaabtii cawaa ayaa lacag noqotay cawo alaabteedii baa daayma noqotay gaal bay noo keentoo dhex fadhiya caramuus carruurteeduna waa gaalama bal muslimun ka dhig haddaad karti leedahay bal muslimun ka dhig aakhirada jannada ku gashay laakiin inuu ku qaado christmaska inuu ku qaado oo dhulkiisu ku geeyo oo jeerjiyada aad u raacdo ayaan maqalay shame on you adigaa malaa diintii laga saaray bana cawdu bilah ilaahay kaa magan ilaahay ka baq qofka muslimkii qof gaal hadduu guursado oo soo muslimayaay isagu diinti gaalada ma raaco waa ceeb weeyaan waxaas kacawo reer muslimaad ka dhalatay isagoo sharaflaad ka dhalatay ninkaa inaad soo muslimisho yaan kaa dalbanayna in badan baan ku aynay anu aymanka kuma odhanayo laakiin waad og tahay dhibaatooyinkaad geysatayna waad og tahay adiga islaantan ciddadaaya ee la sheegsheegaya laleeyahay afarta ciisa ilkaa qorana la soo laayay tiraa laleeyahay islaanta ciddadaaya inaa caynaansha inaa cabdi caynaansha maxaa waalay iyadana maxaa waalay oo maxaa ku kalifaynaya arrimaha dhex gasho aan garanaynaa waxa waalay aabaheed mise awowgeed ayaa basaaskii ay shaca gubay ahaa jabaadii allah u naxariistay xaamud uu ka shaqaynayay ayaa ku qabatay saylac halkii waa lagu toogtay aargudashadii bay wadaa aargudashadii oo reeri waxaad u disheen xaamud laangare magaala dirraba dhexdeeda ku disheen jeex nin la yidhaahdo oo yoonis muuse hargeysa dhexdeeda ku toogatay oo arrinkaa la socday aargudashada oo reeri waad samaysateen laakiin xisaabta ilaahay baa leh awowgaha wuxuu aqaayin warqadii odayada soomaalida ganacsatada ay shaca ay qoreen ay u direen soomaali syl ayuu nin soo qaaday warqadiibaa adeerkaa loo dhibay adeerkaana jaranaarkii ay shaca ayuu dhibay xilasalaasa loo diray sidaaba lagu xasuuqay ay shaca awowgaha wuxuu ahaa dulm miyuu ahaa dulumkii maanta korkii la dilay jannadu waa ku gali karaaba qofka haddii uu dulum galo oo la qabto oo la dilo dulumkii waa laga maydhaya markaa sacdiyay isu haddii ay maalinku helaan adna sida awowgaaba lagu dili halkaa hadallada kaa soo baxay ee la soo bandhigay waa dhagaraysanta ciisena waxba kaga qaadi mayse laakiin inaad ceebayday oo tolkay dila aad leedahay gabadhii noqotay ninka loo jirka ah gabadhmaabaa jirta lagu sheekay ninbaa loo jiray oo xergeey gabadh walaashiiyaa loo soconayso oo weylaha u qabanayso la lisaysa rag baa shukaansaday markaa gabadhii markii la shukaansaday waxay tidhi aniga qaadi kari maysiin walaalkay oo dishiin maayne imana guursan kartiin haya seemdillah walaalkay qoriga iyo qolxadka sac fiigaa la ydhaha saca la qabto marka la lisayo ee qortay geesaa la qabto sacaa unbuu hubka dhigaabay ti kolka sacaa la lisayana anaa qayliye ii soo dhawaada boor bay tidhi xoog bay u qaylida uu shikiyey yarkii naasici waaba kan ag joogay maxaad la qayliduy qorigiibuu dhigtay bundiq quster lo odhan jiray oo 2 xabood qaadayay ayuu haystay qorigiibuu dhulka dhigay laakiin qolcadkii iskama saarin raggii oo soo ordayuu maqlay sicii buu ka booday gabadhii weyshaaysaa way dul fadhiday isagu uu fadhiyey iyadoo way sare joogtay halka timo dheer buu lahaa saa u qabatay qolcadkii buu iska saaro gacantii gabadhii kuma goynay
timihii buu u gooyey raggii buu markaa iska caabiyuu qolaxdii gamta kaga saar marka waxaad noqotay sacdiyay gabadha baad noqotay gabadhiina aabaheed baa gowracay oo googooyey sababtoo inankaysii inay dilaysu ogaaday naagtu dee kolkay nin doonayso walaal ma leh waa cadow kolkay gabadhu kacsato khatar cadiim sacdiya cabdi caynaanshaay inan yaroo imika kacsanaysa matid canfarooyadaana waa dhashay odagaagiina waa canfari caruur buu kaa dhalay naag weyn oo duqaa tahay xisho dhiiggaaga ciisaa leh maleyna canfari inaad canfar maanta tiraahdo ayaa la safan oo ciisaa la soo laayana ceeb caleyg bay kugu tahay ceeb caleyg wax la aqbalayana maaha marka waan ni salaamayaa dhammaantiin aad baan ni salaamayaa programkuna taxaniyeyni baan wadi doonaa waxaan igu soo dhaweynayaa salaamaad baan igaga baxayaa شرقرية برنامج ما سنتي جزاك الله خير بوشا نقالة بوشا نقالة ستي سيلة المضايا سيلة المضايا إلكشنكا ما يرقى سيلة عن الصوصارة هولين أنا سواقا جيستا أديت عن بكر بايس يس جبوتي على سبيل دخل أرتاع أنا إسكالي أدودا منا كما بريه أدودا أنا إسكالي حتى النبات يونا كنت أقول إذا رح أبري تجوري أبوك وأنا قاعد نهرت ريال الجنة نبات كنت أقول أديتي عند بنا ولدي ما جني أبارك صور رسالة هم صور رسالة قلبي بيدون ترجعني ما يدون قلبي بيدون ترجعني ما يسدي أنا على قلبي أنا قاعد رجعني ما لي سارة أحمد لا نحرسته جنة فردوس الله قليل أبكي معنا الكاوان نقطع حياة لما أنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته